2,240 arday ayaa maanta u fariistay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe ee qaadaysa wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug. Imtixaankan oo lagu galayo 14 xarumood oo ka tirsan deegaanada Galmudug waxa uu noqonayaa midkii ugu horeeyay ee wasaaradda waxbarashadu ay qaado. Agaasimaha waaxda imtixaanaadka iyo shahaadooyinka Galmudug Axmed Xuseen Khayre waxa uu sheegay inay tahay markii ugu horeysay oo imtixaankan ay qaadayaan wasaaradda waxbarashada Galmudug. Axmed Xuseen Khayre waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyay in shahaadooyinka dugsiga dhexe ay bixin doonaan wasaaradda waxbarashada ee Galmudug. bilaaba ma iska leh maanta oo taariikhdu ay tahay 18 May sanada 2019 dowlad goboleedka Galmudug wasaaradda waxbarashada waxa saakisi isku mid ah uga bilowday imtixaanaadkii fasalka 8aad dugsiga dhexe. imtixaankiisa oo sanadkan wasaaradda waxbarashadu ay si wada jira imtixaan midaysan looga qaaday ardayda ka qalin jabinaysa dugsiga dhexe. sidaan ku malanayn maanta oo taariikhdu ay tahay 18 waxa dhammaan degmooyinka Galmudug ka bilowday imtixaanka fasalka 8aad ardayda ku galaysa dhammaan degmooyinka waxa lagu galayaa 7 degmo 14 xarumood ayaa imtixaanka saaka loogu wada fariistay ardayda fasalka 8aad waxa galaysa arday tiradu ay tahay 2,240 arday oo u fariistay fasalka 8aad magaalada Cadaado oo maanta imtixaankeeda aan ka furno maanta aan joogno 470 arday ayaa u fariistay imtixaanka fasalka 8aad wasaaradda waxbarashada Galmudug sanadkan waa markii ugu horeysay imtixaan midaysan dugsiga dhexe laga qaaday dhammaan ardayda waxaan rajay doonaa insha Allah inuu saas u sii bilaaban doono oo sii socon doono fasalka dugsiga sare form 4 ka waxa qaaday imtixaankiisa wasaaradda dhexe federaalka ah dowlad goboleedna waxay qaadayaan si lagu heshiiyay in imtixaanka 8aad ka qaadaan sanadkii dhaweyd waxa noogu horeeyay Jubbaland oo sanadkii dhaweyd qaaday sanadkan Galmudug ku soo xigta oo markii ugu horeysay aan qaadayna hadii la yiraahdo maanta u fadhino shahaadada dugsiga dhexe insha Allah wasaaradda waxbarashada Galmudug ayaa dhiibi doonta ardayda intii ardayda ku soo baastay imtixaankan ardayda meel kasta ay joogaan waxaan rajeen doonaa guul iyo horumar insha Allah imtixaanka gaaraan waxaan kala mahad celinaynaa dhammaan maamulayaasha iyo macallimiinta dugsiyada kala gedisan Galmudug oo nagala shaqeeyay in imtixaankan midaysan maanta si wada jir lagu fariisto waxaan ilaahay ka rajeenaa insha Allah 4 maalmood imtixaanku socon doono 7 maado la galaya maanta waxa lagu bilaabay 2 maado oo ah Soomaali iyo tarbiyo 7 maado la gali doona 4 maalmood imtixaanku maanta ka bilaabanaysa insha Allah waxaan rajeen doonaa ardaydu inay guul iyo nabadgelyo inuu nagu soo dhamaanay doona insha Allah. Cabdulqaadir Maxamed Xasan dalka News TV Cadaado.